iyadoo ay soo dhowdahay doorashada madaxtinimada Puntland oo isla markaana ay gaarayaan caasimada maamulkaasi ee Garowe musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa maanta waxa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Garowe Cali Cabdi Awaare oo isagu ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland waxaana taageerayaashiisa isugu soo baxeen qaybaha kala duwan ee magaalada waxaa sidoo kale musharax lagu magacaabo isaguna Cali Xaaji Warsame oo kulan la qaatay ardayda wax ka barata mid ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Garowe oo uga warbixiyay wax qabadkiisa ku aadan hadii uu ku guuleysto xilka madaxtinimada Puntland wararkii u dambeeyay musharaxiintaasi waxa magaalada Garowe inooga soo diray wariyaheen halkaasi ka soo warama Cabdirasaaq musharax Cali Xaaji Warsame oo kamid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa la kulmay ardayda dhigata jaamacadda BSU ee magaalada Garowe si uu ugu soo bandhigo qorshihiisa siyaasadeed ee ku aadan xilka uu haatan u taagan yahay kulankan oo lagu qabtay isla hoolka jaamacadda BSU ayaa musharax Cali Xaaji Warsame iyo ardayda dhigata jaamacaddaasi ku kala qaadanayeen fikirro ku aadan siyaasadiisa iyo waxyaabaha uu qaban doono haddii xilkani ku guuleysto ugu horeyn waxa booqashada uu ku yimid jaamacadda BSU musharaxani wax lagu farxo ku tilmaamay maamulka ku-xigeenka jaamacadda BSU Burhaan Aadan Cumar runtii waxay noqonaysaa markii horeysay oo la arko madax wadanka inay madax ka noqdaan raba oo mataqaanaa la hadlaya oo la sheergareynaya fikradahooda aqoon-yahanada ardayda jaamacadaha iyo waliba madaxda mustaqbalka musharax Cali Xaaji Warsame oo ardayda u soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa ardayda u sharaxay qorshihiisa siyaasadeed oo doonayo inuu qabto haddii uu xilkani ku guuleysto waxaan qabaa inaad mustaqbalkii Puntland cid walba oo doonaysa Puntland inay xukunto inay idinkala tashato mustaqbalka aad ka rabtaan Puntland ama Puntland aad doonaysaan 5 sano soo socota xaq baad u leedahay waxaan ballan qaaday inaan maamulkayga ka dejiyo laamiga waxaan ku cadeeyay inaan laamiga ka dejin karo waliba waqti la ii bahalgeliyay meelaha qaarkood in la tago waxaan u arkay muhiim inay tahay in qofku wuxuu dadka ugu yeerayo ama waxa uu sheeganayo ka dhabeeyo oo fuliyo waxaan tagay bahda waxbarashada Boosaaso waxaan u arkay muhiim inay tahay shacabka in loo tago si loo ogaado waxay rabaan dad badan waxay yiraahdaan waqtiga aad iska dhumisay 66 nin baa ku soo taagan samada ka soo dhacay oo ayaga laftigoodu gorgorta gaar ah u baahan waxaan aaminsanahay inay khaldan yihiin 66 ku samada kama iman dadkay ka yimaadeen dareenkan ay xabaarsan yihiin bulshada ay qayb ka yihiin hadday doortaan oo Puntland u doortaan cid ay u arkayaan inaanay kaalinta ka soo bixi karin waa mas'uuliyad Ilaahay saaray iyaga laga xisaabtamaya anigu waxaan ka soo shaqeeyay wadanka gudihiisa waxa laga yaabaa inaan mararka qaarkood shaqooyinka aan soo qabtay aan uga xog badnaa taliyayaasha booliiska ee Puntland subaxii waxa laga yaabaa aroortii markaan xafiiska fariisto 140 xarumood oo Puntland ka tirsan inaan ogahay roobka ka daay dabaysha ka dhacday gaariga lagu dhacay dabaylka istilay dagaal xumada dhacday gaariga gadoomay iyo wixii la mid ah Cali Xaaji Warsame sidoo kale waxa uu ka hadlay waxyaabihii sababay inuu xumaado xiriirka u dhaxeeyay Puntland iyo Soomaaliya Puntland waxay ahayd hooyadii aasaastay dawladda federaalka dagaal ku bixisay dad bay ku bixisay waqti bay ku bixisay madaxdii Puntland baa suurta gelisay in Soomaaliya calankeedu ka baqdo fila Soomaaliya madaxdii Puntland baa suurta gelisay Kalkacyo Declaration Garowe 1 iyo Garowe 2 madaxda Puntland baa suurta gelisay dastuurka federaalka loo codeeyo madaxda Puntland baa suurta gelisay in maanta madaxda ku fadhida xilka dawladda federaalka ay yimaadaan Puntland kelmad bay ku lahayd aasaasay ahayd dowrkii laga filay inay qaadan weydo waxaan aaminsanahay in madaxda Puntland dowr way ku leedahay idan la hadlayno oo ku nala hadlaysaan oo nala fariisan maysaan oo idan la fariisan mayno oo isarka mayno oo waxba wadaagna waxana ma wadaagno Puntland kuma tartami karto ugu dambeyntii ardayda dhigata jaamacadda BSU ayaa su'aalo kala duwan weydiisay musharax Cali Xaaji Warsame kuwaasi oo kamid ahaayeen sidii loo horumarin lahaa waxbarashada isla markaana looga dhigi lahaa lacag la'aan wax ka qabashada shaqaalaysiinta ajaanibta xilli ay joogaan dhalinyaro badan oo aqoon-yahan ah kuwaasi oo aan shaqo haysan iyo sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka dalka
su-aalahaasi oo dhan ayaa musharax cali xaaji warsame waxa uu sheegay inuu dhammaantood ay tahay mas-uuliyadda saaran ruux walba oo xilkaasi isu soo taaga islamarkaana uu isagu leeyahay aqoon dheeraad ah oo arrimahaasi wax kaga qaban karo sababta uu haatan isu soo sharaxana ay tahay sidii arrintaasi u xallin lahaa. cabdirasaaq maxamed xayir tv-ga kalsan magaalada garowe. soo dhoweynta musharax madaxweyne cali cabdi awaare ayaa waxaa ka qayb qaadanayay boqolaal dadweyne ah kuwaasi oo ku soo labistay calanka Soomaaliya iyo kan Puntland iyagoona ku dhawaaqaya erayo isugu jira suugaan iyo tiraab kuwaasi oo ay ku muujinayeen taageerada uu leeyahay cali cabdi awaare oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland. musharaxan oo soo gaaray magaalada Garowe kadib safar muddo qaatay oo ku marayay dalka iyo dibadiisa ayaa waxaa si diiran loogu soo dhaweeyay diloodka bari ee magaalada Garowe halkaasi oo ay ku diyaarsanaayeen boqolaal qof iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan. soo dhaweynta kadib cali cabdi awaare oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa loo soo galbiyay gudaha caasimadda Puntland isagoona fagaaraha weyn ee Garowe caanka ku tahay kula hadlayay dadweynihii isugu soo baxay soo dhaweyntiisa. waxa uu sheegay inuu yahay musharax dalka in badan joogay isla markaasna waxyaabo badan oo haatan Puntland ku faanto uu isagu gundhigu ahaa. waxa uuna ballan qaaday mudane cali cabdi awaare haddii xilkan ku guulaysto uu arrimaha asaasiga ah wax ka qaban doono. waa dhici kartaa murashaxiinta ila tartamaysa in badan inaanay deganayn in badanina hadday ugu bataan hal magaalo inay guri ku leeyihiin laakiin anigu Puntland oo dhan baan deganahay. Puntland oo dhan baan degaamadeeda soo wada maray oo u warhayaa oo dal iyo dad iyo degaanba aan cid walba uga aqoon badnahay hadda ogow waxna aan soo qabtay. caasimadda aan maanta halkan joogno golayaashii degaanka waxay ahayd meelii ugu horreeyey oo aan ka bilownay inaan golayaashii sharciga dowladaha hoose aan ka hirgelin. sharciga caasimadda Puntland wasiir iga horreeyey oo sameeyey ma jira aniga xilligaan wasiirka ahaa ayaan sameeyey sharciga caasimadda Puntland. insha Allah haddii aan ku guulaysto oo ilaahay igu guuleeyo in aan wax badan dalka iyo dadkaba u qaban doono hadda waxqabadkaygiina waa la arkay halkudhigaygu inta badan waxa dadku ay iga maqlaan magaalo waa madal inta joogtaana waa madal haddaan wax waayo anigu ma noqonayo waa joogayaa hantidaydii baa taal dadkaygina ma jooga halkaan waxelana hoggaan fiican oo hormuud fiican leh oo waxqabad la taaban kara leh oo maamul baahsan leh oo kaabayaasha dhaqaalaha waad ogtihiin hadda murashaxiin badan ama inta tartamaysa oo dhan ciidanaysay dhaqaalaha Puntland ma jirto anigu dekadii halbowlaha inoo ahayd baan daraad soo kormeeray soo lama socotaan yaa tagay oo kale danaynayaan Puntland marka أنا أتبدأني يبونتنا هالبوله سومالي واحد ترى هذا ولا هذا وأنا هشيم مدحتويدا أيا مدحوينه وفيني وحين شروط مكدي أو وفيني مدحتويدا أيام وقبلنا هذا مدحتويدا وماشى نصعنه إنا كله وماشى نوعدونه مرشحينta kale ma aysan soo arag wala soo diyaar garoobin laakiin anigu waan tagay waa soo saansan inaan wax xukumaan doonayo dalka iyo dadka kastaba musharax madaxweyne cali cabdi awaare oo xukuumadii hore ee Puntland ka soo noqday wasiirka arrimaha gudaha ayaa ahaa musharaxii ugu horeeyay ee gudaha caasimadda Puntland kaga dhawaaqa musharax u taagan xilka madaxtinimada Puntland. cabdirasaaq maxamed xayir tv-ga kalsan magaalada Garowe.